waa maktabada duubista cajaladaha ee Al-Huda Nairobi Kenya oo idin soo gudbinaysa muxaadaradani. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aaqibatu lil muttaqiin wa la 'udwana illa 'ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله سبحانه وتعالى وهو كتاب كيسا منزل كان نوغو شيغي إن أي جيران دad quluubta ay jira uga jirto tiradaas oo ah diinta islaamka oo ka shakisan yihiin, dadka islaamka oo cadaawo u hayaan, sharciga oo sida uu yahay inay u dabaqaan aysan diyaar u ahayn. sidaa darteed allah wuxuu yidhi kuwa quluubtoodu jirada tahay jirada rabbi ha u siyaadiyo, waana loo siyaadinayaa, waxayna iska leeyihiin cadaab aliim ah oo jirka laxwiyo xanuujiya. cadaabkaa waxay ku yeesheen buu alla yidhi beeninta ay beeniyeen diinta islaamka iyo islaamka ay sheeganayaan oy ka been sheegeen. li'anna qofku hadduu yidhaha muslim baan ahay ee dhaqanka diinta islaamka uu ka been sheego, sidii loogu talagalay oo u dhaqmi waayo, wuxuu noqonayaa axad alle agtiisa cadaab ku leh oo beenlow ah. marka beenta ay cadaabka ku galeen waxa weeyaan in ay yidhaahdeen qalbigeennu rabbiyow nadiif u yahay, dadka markay la joogaan islaamka ay isu ekaysiiyaan, markay dariiqyada kala marayaanna diinta ay dagaalankeeda ku shaqeeyaan. dadka nuucaasu inay cadaab aliima leeyihiin oo jirka xanuujiya ayuu alla noo sheegay subxaanahu wa tacaala. allah waxaanu ka magangelaynaa cadaabka iyo ciriiriga, waxaana weydiisanaynaa inuuna siiyo nasri taam ah. waxaan kolka daraaso ku samaynaynaa sida aayaddaa laga gartay aan akrinay amraasha ama cudurrada loo yaqaano kuwa baadiniga ah ee qofka qalbigiisa ku dhaca. cudurradaasu ma ahan inay yihiin TB iyo qufac, mana ay ahan xanuun iyo qofka inay biyo caloosha ka gelayaan. cudurradan waxaa loola jeedaa kuwa qofka uu diinta ku garamarayo, waxaana laga hadlayaa inay yihiin kuwa qofka muslimka ay lagama maarmaan tahay inuu iska dahiro, axadka qalbigiisa ay ku jiraanna uu cadaab ku yeelanayo. marka cudurrada baadinka ah ee qalbiga ku dhaca oo in la iska dahiraa ay waajib tahay ayaanu daraaso ku samaynaynaa. cudurradaas waxaa ugu soo horreeya kibirka, waxaa ku xiga xujbiga qofku isla yaabo, waxaa ku xiga carada oo aan diinta ilaahay qof ku xadgudbay aan loo caroonayna aan adduunyo dalabkeed loo caroonayo kale ah. markaad carootana waxaad doonto aad ku dhaqaaqayso. waxaa ka mid a xaqdiga iyo xaasidnimada, suu-u danniga oo dadka muslimiinta xumaato loo maleeyo, muslimiinta oo la xaqiro, xaqooda oo la fududaysto. cudurrada baadinka ee la sheegayaa kuwaa ayaa ka mid ah. marka kuwaas ayaanu daraaso ku samaynaynaa haddii rabbi qadaro subxaanahu wa tacaala, annagoo allah ka kaalmo dalbayna oo xeeladeenna iyo xooggeenna ka baxayna oo rabbi xeeladiisa dhex gelayna, rabbina awood iyo gargaar ka dalbanayna iyo inuuna karsiiyo samaanta inaan bayaanino, qaladaadkana aan ka tagno isaga digno ayaan mawduuca isagaa dhex geli doonaa oo ugu soo horreeya cudurrada qalbiga oo kibirka la yidhaah. kibirka, takaburka iyo khuyalaha waa 3 arrimood ee islamida isu dhow. allah oo ka warramayana wuxuu yidhi innahu laa yuxibbu almustakbiriin. allah jalla wacalaa subxaanahu wa tacaala laa yuxibbu almustakbiriin. rabbi ma jecla, rabbi naxariis kuma amaal mariyo, rabbi cadaabka kama dhowro, ciriirigana kama qaado dadka kibirka badan leh. dadka diinta islaamka inay gartaan iska kibriya, dadka awaamirta alla inay qaataan iskala weyn, dadka bani aadamka inay ka sarreeyaan ismooda,
oo aysan balla ahayn hooye inay dhasheen markay hadlayaan sare isu qaada dariiqa markay marayaanna ummadda iskala weyn dadka noocaasa allah ma jeclaa allah haddausan jeclayn raalli kama noqdo allah haddausan jeclayn jannadiisa ma siiyo allah haddausan jeclayn cadaabkiisa kama koriyo macnaha jacayl la-aantu sidaa weeyaan axadka aad jeceshay dhib iyo dhibaato lama doonaysid ee waxaad jeceshay saacad walbaba inuu wanaag iyo sharaf ku nool yahay rabbi kow jecel yahay waa badbaadiyaa nasri iyo gargaar ayuu siiyaa cadaabkana wou ka ilaaliyaa firdowsana hoyaad bow uga dhigaa ducadiisa wow ajiibaa cadowgana wow ka qabtaa adduunka hadduu dhib ku yimaadana sabar baa lagu arsuqaa qofka kibirka badan ee diinta islaamka inuu ku dhaqmo iskala weyn intaa lama siiya cidhiiri baa lagu sallidaa cidhiiriga qofka lagu sallidana waxaa ugu sarreeya dhib yaru markuu ku yimaado in argagax qalbigiisa lagu beero ee kalsoonida alle ka lunto subxaanahu wa tacaala kalsoonida alla inay ka lunto waa arrinta ugu adag wa rabbi ha laga cabsado oo axad walboo muslimu tawaaduc ha la yimaado oo allaha khalqiga isu dulleeyo allah subxaanahu wa tacaala waxau aayad kitaabkiisa ka mida ku odhanayaa kitaabkiisa munasalka ah walaa tusa'ir khaddaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxaa ina allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin fakuur allah subxaanahu wa tacaala ma jecla dadka kibirka badan marka alla markuu dhiibayo awaamirta muxuu yidhi isagoo ka sheekaynaya luqmaan oo wiilkiisa la hadlaya dhafoorkaaga ha ka iilin dadka ha ka jeesanin takabur iyo isla weynan darti walaa tusa'ir khaddaka linnaas haadi aaya axadkii macnaheeda garta ee rabbi inuu rumeeyo ku arsuqo ma laga yaabo inuu kibir adduunka kula noolaado marka allah wuxuu leeyahay dhafoorkaaga dadka ha ka iilin bani aadamka ha ka jeesanin isla weynan darti dhulkana ha ku soconin adigoo faajeersamaya oo tabaqtur u saaxiib ah oo isu arkaya inaad tahay qof qaymo badan haddaba walaal waxaad ogaataa marka diinta laguu soo jeediyo inaad u hoggaansanto haddaadan u degdegin axad mutakabbira ayaa tahay muslimiintu markay kuu naseexeeyaan naseexada haddaadan qaadan qof isla weyn ayaa too mutakabbir ah lianna allah muxuu leeyahay walaa tamshi fi lardi maraxaa luqmaan oo wiilkiisii la hadlaya ayaa rabbi ka xikaayooday subxaanahu wa tacaala dhulka ilaahay ha ku soconin adigoo saro isu qaadqaadaya 3 calaamo qofkii laga helo dhulka ilaahay isagoo saro isu qaadqaadayo ku socday 3 calaamo haddii lagaa wada helo iyo haddii mid ka mida lagaa helo calaamada koowaad waxa weeyaan inaadan naseexada qaadan calaamada labaad waxa weeyaan inaad isbiddo inaan lagaa wanaagsanayn calaamada saddexaad waxa weeyaan in aad halmaanto meesha lagu dhigayaa inay qabri tahay waayo qofku qabriga hadduu halmaamo waxaa qalbigiisa la geliyaa inuu qaymo leeyahay arrintuna sidaa ma ahan ee rabbiga idin khalqay dadkiisa noqda rabbiga idin khalqay isu dhiiba kibirka laguu sheegayo waa midka diinta looga baxayo oo qofka ku xambaaraya inuu rabbiga khalqay caasiyo waxaadna ogaataa shayga kibirka la yidhaah allah subxaanahu wa tacaala wax lagu caasiyo ugu horreeyey inta rabbi lagu caasiyey waxaa ugu horreeyo macsiyaa kibir waxaana ku caddaynaya rabbi subxaanahu wa tacaala malaa'igta muxuu ku yidhi usjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin jalla wacala allah subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa muxuu ku yidhi usujuuda aadam u sujuuda kulligood way sujuudeen wayna aqbaleen warka allah ilaa ibliis maahane ibliis wou diiday waa iskibriyey wuxuuna ahaaday horay u ahay cilmiga alle haddana yahay weligiina ahaan doonaa sida rabbi lafdiga kaana ka cabiray mid gaalada ka mid ah mid kufaarta mujrimiinta ka mid ah oo rabbigii inkiray subxaanahu wa tacaala waatuu ku jawaabay ana khayrun minhu anigu waan ka khayr badanahay maxaa yeelay khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min tiin waxaad iga abuurtay aniga holac oo iftiin ah isagana dhoobo seen ugu sujuuda arrinkaas
seen warkiisa u yeelaa maanta annaga sidaa ayaan taagannahay markaan qabiilka isugu faanayno markaan cilmiga isugu faanayno maanigoo reer hebela inta safka la garaaca ayaa la yidhaah maanigoo kida ah hortaa ibliis baa yidhi lacnadaana ku dhacday cadaabkii allahna loo yaboohay cidhiiri allowna qaatay jahannadaana hoyaa looga dhigay ana waxaa la yidhaah iska ilaali iyo isla weynanka oo rabbigaa ka cabso wa rabbi baa ku khalqay rabbi baa xayaatada ku geliyey rabbi baa xayaatada kaa qaadaya adduunkana kuma keenin inaad takabur ku noolaatid war allaha ku abuuray isu dhiib oo u tawaaduc isaga taas ayaa lagaa doonayaa allah subxaanahu wa tacaala muxuu yidhi ina allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin fakoor allah jalla wacalaa ma jecla wanaagna kuma amaal mariyo naxariistiisana wou ka hoojiyaa axad kastee faajeertan badan ee kibir badan ee faan badan ee isla sarrayn badan ama ha noqdo nin ama ha noqdo naag fardi ma lahan qoladau doonaha u dhasho sidau doono oqoon ha u lahaado axad kasta ee tafaakur ou ku jiro rabbi ma jecla rabbi nasri ma siiyo rabbina uma gargaaro low aan kibir nagu jiri lahayn walaalahan noqon lahayn low aan kibir nagu jiri lahayn silinkaanu wadaagi lahayn low aan kibir nagu jiri lahayn diinta allahan u dhiman lahayn qof walbana qalbigiisau ka ilaalin lahay inuu xumaato ugu qaado walaalkiisa islaamka ah ee dhinaciisa kala maraya war rabbiga idin khalqay addoomma u noqda war allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku yidhi ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin kuwa aniga cibaadadayda iskala weyn oo rabbi ou ka hadlaya baryaha aniga inay ibaryaan isu kay dulleeyaan ii hoggaansanaadaan rabbiyow noo gargaar ay saacad walba taagnaadaan dadka arrintaa iskala weyn waxaan geli doonaa naarta jahannaba la yidhaah ayagoo daliiliin ah oo araadil ah oo wejiga ku soconaya haddaadan tawxiidka dhulka ku socon markaad maraysid qalbigaaga waxdaaniyada alle ku weynaa naftaaduna aysan kula hoosayn saamahaada aadan u qaadin diintaan allow wax u qabo qalbigaaga aadan uga fekerin nasri allow islaamka sii indhahaada aadan alle darti uga ilimayn saxda dhexana aadan rabbi darti u gacmo hoorsan adoo wejiga ku soconayaa jahannabo lagu hoynayaa ma kugu habboonee rabbigaa ka bad jahannaba meel la aadi karo ma ahane oo markay bani aadamku hurdayaan daacada alle iyo baryaha alle ku soo jeed oo markay dadku sibraha kibir la qabsanayaan adiga tawaaduc darti allaha u sujuud oo dadku markay xanta iyo beenta u lugaynayaan diinta islaamka wax u qabashadeeda iyo dana alla raalli ka yahay oo adiga kugu saabsan qabsigooda u lugay oo rabbigaa ka boqoo saamahaada jahanabaha ku shaqaysanin qalbigaaga aan haw shaqaynin in cadaabkii alla lagu shubo dhuxulihiisa ee waa inaad diinta alla u adeegtaa war dadka kibirka badan alla ma jecla war kibirku waa cudur war waa cudur qalbiga ku dhaca oo tiibiida ka daran oo xabadka in maalu kuu buuxido ayaa kaaga khayr badan in kibir kuu galo li'anna rasuulkii allah xadiis saxiixa ku yidhi laan yamtaliya axadukum jawfaw qayxa khayran lahu min an yamtaliya lahu sixraan axadka in qalbigiisa maalu u buuxido ayaa uga khayr badan in sixir uga buuxsamo sixirka waxaa loo soo qaatay waxaa lagu faano oo lagu kibrow sixirku ugu horeeyaa maxaa yeelay gabayada dadkaa lagu caaya axadka gabyaygaa ummadda wou iskala sarreeyaa dadka wou iskala qiimo badan yahay marka sixir qalbiga laga buuxiyey haddii lagu matelay naar inuu maalka u yahay maxaad u malaynaysaa adigoo iskala weyn dadka ilaahay khalqay maxaad u malaynaysaa waajibaadka alla inaad fulido adoo iskala sarreeya arrintaadu xaggay taagan tahay sow axad aad u xun ma tihiin war rabbi ha laga cabsadoo diinta ha la ilaaliyo dadka kibirka badan leh calaamo lagu yaqaanayo alla noo sheegay si kastoo wanaagga loogu cabiro si kastoo firdowso looga sheekeeyo jahanabana loogaga digo si kastoo dariiqa islaamku ou falay oo hagaagsan loogu bayaaniyo oo la yidhaha tubtii tawxiidka waatana qaada taladii rabbi soo dejiya waatana taqwo la imaada si kastoo tawfiiqda loogu muujiyo oo la tuso xagga wuxuu yahay xaaraantana looga digo
مقسوا الله يري محايا ربي وحو يري كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار جل وعلا وحو نوع دايي الله سبحانه وتعالى إنه طبوله أو قفل بسك ساره أحد والبا كبير بدن أو متكبر قلبه سؤال الله طبوله سكسو وانسو أصدق الله كسي قارو كدغاغا نجل وانينيو ما وانا قادنيو marka bani aadamka maanta jooga maxadiintu la geeyay isweydi ahad walba waxa nafsada uga jira illa in yaro alla u naxariistay maana walla laguma dhaaro adiga ahad fi ambaabata adu wala dadaasha intaas maanta ku soo gashaana balaayo kuugu horeysa wa rabbigiina ka xabsado nafsadiina daaweeya waxaa dhacday maalin maalmaha kamida inay kulmeen cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu camar ibn al-caas waxay ku kulmeen buurta la yidhaha marwa way sheekaysteen markay sheekaysteen ayay kala tageen kolkay kala tageen oo cabdullaahi ibnu camar ibn al-caas iska tegey cabdullaahi ibnu cumar waa ooyey isagoo ooyaya ayaa nid u yimid oo waxau yidhi yaa abaa cabdiraxmaan maalaka war abaa cabdiraxmaan bow maxaa kugu dhacood la ooyeysa وadiga meesha ooyinta la fadhiye waxau yidhi ninka la yidhaha cabdullaahi binu camar cabdullaahi binu camar ibn al-caas waxau igu yidhi nabiga ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo ku qawlaya man kaana fii qalbihi mithqaalu darratin min khardalin min kabrin kabbahu allahu liwajhihi fi nnaar axadkay qalbigiisa ku jirto mithqaalu xabbatin min khardal xabad yar midda ugu yaraan badan oo qooxa lagu magacaabo qooxa xabadihiisa marka la jebiyo midhaha yaryarka ee dhexda uga jira intaas waxay leedahay qofkay qalbiga uga jiraan oo kibira rabbi baa weji naarta ugu tuura saas ayuu igu yidhi buu yidhi rabbi baa weji naarta ugu tuura xadiidka axmed oo ku sugan yaho ruwaadiisu waasiqaaba waa xadiid xasan ah marka bal u fiirso cabdullaahi marka waxau ka baqday in qalbigiisa in yar oo kibiru soo gasho markaasuu ooyey kolkaas ayuu aamusi diiday asagoo ka baqanayo in qalbiga kibir ka soo galo saa darteed xasanulbisri waxau yidhi wallaahi maa khaafahu nifaaq ilaa mu'min walaa aaminahu ilaa munaafiq ilaah baan ku dhaartee munaafiqnimada kama cabsado axad iimaan la mooye axad kale kamana aamin noqdo axad munaafiqa mooye qof kale nusuustu waxay ta'fiiridaan ooyin iyo walbahaarna qalbigiisa ku beerta qofka iimaan ku jiro axadkaan iimaan ku jirin fasal buu ka qaadaa iyo kibir markaasuu safkaysa garaac u leeyahay maxaa aniga la iiga sheekaynaya waa rabbiga idin khalqay ka cabsado asaga isu julleeya waa rabbi addoommadiisa noqdo tawbada ku dadaala waa rabbi subxaanahu wa tacaala raxmad ayuu idiin diyaariyey ee dariiqow rasuulku maray kaalay oo mara raxmadda alle si aad ku gaartaan oon qabriga laydinkugu cidhiiriyin qalbigiinna samaysta istaagoo rabbigiin aayaadkiisa akriya si allah subxaanahu wa tacaalaa qabrigiinna u waasiciyo waxaad ku dadaashaan inaad quluubtiinna hagaajidaan quluubtiinna kibirka ka nadiifiyo rabbi ka baqa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau ku yidhi xadiid muslim ku sugan laa yadkulu jannata man kaana fii qalbi mithqaalu darratin min kabrin jannada allah ma galo axad in yar oo waxa yar ugu yaraan badan darra waa shay yar shayga ugu yar oo kibira qofkau qalbigiisa ku jiro jannada alle ma gelayo macnaha waxaa loola jeedaa in yar oo kibira qof ay ku jirto jannada ma gelayo qalbigiisa waxaa ku jira shirki waayo kibirka aad maqlaysaa waxa ilaahay lagu caasiyo lagu gaaloobo ugu horeeya marka rabbigaa ka cabsoo qalbiga kibirka ka ilaali rasuulka markau leeyahay jannada geli maayo macnaheedu waxa weeye muslim ma ahan wax alla waxu cibaado sameeyana laga aqbali maayo maxaa yeelay rabbiga waa iskala weynyaa diintiisa muslimiinta waa iskala weyn yahay waa axad isla sarreeyo qaymo isla leh war qofka muslimkaasaa loogama baahna rasuulka sala allahu calayhi wasalam rajul ayaa la hadlo waxau yidhi yaa rasuula allah ina arajula yuxibu an yakuuna tawbuhu xasana wa nacluhu xasana sidee weeye qofku waxau jeclay in maradiisu quruxsan tahay kobtiisu quruxsan tahay ee kibirku waa sidee rasuulku wuxuu yidhi ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal allah waa alla wanaagsan oo jamiil ah oo xumaatoo idilka hufan oo wax kastoo qurxoon ka quruxsan quruxda iyo nadaafadda iyo wanaaggana wuu jecel yahay laakiin kibirkaan ku barayaa buu yidhi sala allahu calayhi wasalam alkibiru
badaru lxaqi wa gamdu nnaas kibirka waxaa la yidhaah dafcu lxaqi xaqoo derbiga laga tuuro marka laguu sheego oo aad ku jawaabto waanadaada ma yeelayo iyo dadka oo la xaqiroo la liido cajaa'ibta maanta jirta waxaa ka mid ah oo bani aadamka lagu hayo axad wou caroonayaa yowman min alayaam caraa gelaysa waxaad u sheegaysaa nusuus aayaadka alle iyo sunnada nabiga ka mid ah oo qaladka uu ku jiro ka warramaysa waxuu kuugu jawaabayaa markay caroodo maxaad daliilka u keenaysaa arrinta tana sidee weye war haddaad carooto ma diinta ka tilaab baa lagugu yidhi mase waxaa lagugu yidhi sare isgey saacaddaas ayada ayaa qofku waxuu isla noqonayaa jahorad bani aadamka dhanna qurun buu ka dhigayaa har alla ka baqaya rabbigeena alla ka cabsada kibirka waa xaqa in la dafciyo oo dadkiisa lagu radiyo muslimiinta in la xaqiro oo dadka la iskala sarreeyo ama cilmi iskula sarray ama qabiil iskula sarray ama aqoon iyo caqli iskula sarray ama xoog iskula sarray waxaa rabta iskula sarray marba hadday niyadda kaa soo gasho waa sarraydaa lacnadu kugu dhacday markaas way kugu timid runtii oo saacaddaasay dushaada ku taallaa war ilaahayna ka cabsada war rabbigayna khalqay ka cabsada waa cudur aan iska daway kari la'anaas waxaa la leeyahay dadku maa diinta qaata dadku maa dad hagaagsan noqdaan war axad ay niyadda uga jirto in yar alla ilaah way hagaagsan tahay ma suuro gashaa inuu nusuus kaa qaato ma suuro gashaa inuu rabbi isu dhiibo ma suuro gashaa inuu dariiqii nabiga maro sala allahu alayh wasalam la maya ninka la yidhaah abaadar sida saxiixa ku sugan markau ninka saxaabiga ayaa isagu ay isqabteen ee uu ku yidhi yabna sawda ina hooyo madow hooyadii ku eedeeyey rasuulku wuxuu ku yidhi waxaa tahay imra axad fiika jaahiliya waxaa kugu sugan nooc jaahiliyada ka mid ah ilaa abidar ou raalli ku noqday inuu dhafoorkiisa dhulka inta dhigayla igu joogto waxaan ahay ma lahane ou arrintaas ayadaa oggolaaday u fiirsaso u tawaaducayo waa abidar oo la yidhi jaahiliyaa kugu sugan wallaahi tuma wallah axadaysan jaahiliya ku sugnayn inaan dadka maanta diintan sheeganaya ou fara ku tiris yahay oo halkii malyaana toba qofood laga soo dhex saari karayn axad aan jaahiliya ku sugnayn jaahiliyadaas ama qabaliye ha noqoto ama wadaniye ha noqoto ama ha noqoto maada jacayl iyo wax kale noocay doonta ha noqoto lianna u fiirso ninka muslimkaa ninka ku eedeeya midabka uu leeyahay waxaa la yidhi fiika jaahiliya kugu sugan nooc ka mid a qasilooyinkii jaahiliga subxaanaka ya ilaahi allah wuu ka hufan yahay inuu dadka midab ku kala fadilo wouna ka hufan yahay dadka inuu ku kala fadilo xoolo laakiin rabbi waxau dadka ku kala qiimeeyaa waa cabsidiisa inna akramakum cinda allahi atqaakum kan shahaadada idinkugu sarrayda wato alle agtiisa mastaragtiisa waa ninka idinkugu cabsida badan leh xaqaa'iqduna sidaa weeyaan laakiin aawa cabsidii allah xaggee la geeya cabsidii allah iyo diinta islaamka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi xadiis saxiixa ku sugan ku yidhi allah muxuu leeyahay alkibriyaau ridaa'i waalcizu izaarii faman naasacanii waaxidun minhumaa faqad cadabtuhu fi nnaar fii bacdi riwaayaat alqaytuhu fii naari jahannam waxau leeyahay allah kibirka aniga u garbasaartayda yahay cisiga iyo sharaftana anuu maxawis ii yahay mid ka mida ninkii igula doodana jahannabaan weji ugu tuuraya maxaa looga cabiray garbasaar iyo maxawis waxaa looga cabiray marada aad hoos ka xidhan tahay ee jirkaaga ugu xigta dharka iyo midda aad kor ka huwan tahay sida fasaleetiga ku xidhan ama garbasaartaada huwanta oo kale axadka kugula dhega ee inuu ku qaawiyo ku talagala waxba uma reebanaysid sad ugu yeeratayaa tabarta aad ku difaacdaya waxoon baad ku muquuninaysaa maxaad u malaynaysaa rabbiga uu ooda sara leh labiska asagu watay ninka ku haysta oo ku dhegdhegaya oo asagu sharaf iyo cizi sheeganaya maxaad u malaynaysaa xagga xaaladiisu taagan tahay walle jahannaba hooyo way u noqon haddausan ka tooba keenina malaayaa sugi doonta rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi xadiid tirmidi ku sugan waxaa ka soo baxaya naarta ilaahay madax oo wala carab ou ku hadlo iyo dhego oo wax ku maqlo markaas ayuu odhanayaa waxaa la ii wakiishay inaan 3 qolo aan gurubsado qolada koowaad oo gurubsanaya waxa weeyaan kulla man dacaa maca allaahi ilaahan aakhar axadka alla micigiisa mid kale la caabuday axadka alla micigiisa ilaah kale la caabuday axadka nuucaasa oo la sheegayo waa axadka alla ku lamaaniyey 3 arrimood mid ka mid ah
arrinta koowaad waa hawadiisa axadka alla ku lamaaniyey oo wax kastoo nafsadiisu jeceshaa inuu sameeyo raba bes alla muxuu yidhi uma taagna arrinta labaad waa axadka alla ku lamaaniyey adduunka makhluuqa maraya ee bani aadamkan warkooda inuu ka hormariyo kan allah arrinta saddexaad waa axadka alla ku lamaaniyey maadada ou rabbi abuure xoolaha ah in uu diinta alle ku iibsado dhaafsadana rabbi waxdaaniyadiisa waana saddexda arrimood ay bani aadamku ku gaaloobeen bani aadamku inay asnaam samaystaan hawadooda u dardaarmay inay xugun daaquud degsadaan ay qodobo samaystaan shaydaanka iyo nafsadooda u dardaarmay inay diinta islaamka ka durgaanna waxa u dardaarmay xoolo xaaraana sead ku heshaan oo nafsadooda u dardaarantay waxaad ogaataa marka bani aadamka adduunka ku nool inta alla caabudaa way ku yaraan badan tahay waayo qofku markau rabbi caabudo waa inuu ka xuroobaa jahliga waa inuu ka xuroobaa hawada waa inuu ka xuroobaa bani aadamka warkooda inuu kan alla ka hormariyo waa inuu ka xuroobaa adduunyada jacaylkeeda waa inuu ka xuroobaa si kasta oo wax walba lagu sameeyo inuu aayaadka alla ka tilaabo axadku markaas ayuu noqon karaa qof muwaxid oo alla caabuday laakiin qofaan hawadiisa ka xuroobin raacideeda adduunyada jacaylkeeda ka xuroobin ee tilimaadka diinta siisanaya oo aan ka xuroobin qabiilkiisa iyo goonkiisa inuu runta u sheegi karo meel iska marsii karo markay baatilka la yimaadiin ma ahan axad alla caabuday muwaxid ma ahan muwaxid ma ahan subxaanaka tawxiidka see loo gartay waaba qof kibir badan ood u jeedid oo alla kayrkii ku lamaansane war garta dadka muwaxidiinta la yidhaah war qofku markuu muwaxid noqdo waa marka uu ka baxay saddex arrimood uu bannaanka ka tegay hawadiisa ugu horreeya war haddaadan hawadaada bannaanka ka joogin oo aadan qabiilkaaga bannaanka ka joogin oo qabiilka bannaanka aad ka joogto waxaa laga wadaa inay xariiriyo waajib bay kugu tahay markay maxaashi la yimaadeen xagga waa inaad geysaa lianna rasuulku wuxuu ku yidhi xadiid muslim ku sugan in laysa biawliyaai min ahli fulaan aniga awliyadayda ma ahan buu yihi fulaan ahalkiisa inamaa waliya allah wa cibaadihi saalixiin xadiid macanihiisu sidaas yihin buu nabigu sheegay aniga waxaa gargaara i ah allah iyo dadka sulaxadaa buu yidhi laakiin reer bani hebel aniga waxba imaha waa qaraabadiisa walaakin lahum raxiimun saabullaha bibilaaliha qaraabanimay igu leeyihin aan ku xariiri doono u yihi sala allahu alayh wasalam oo taasi mawduuc weeye laakiin qofka muslimkaa waa inuu diintatan isu dhiiba war isdhiiba oo qalbigiina nadiifiya oo rabbigiina ka cabsada subxaanahu wa tacaala axadka kale waa axadka jabbaarka ee xaniidka ah ee si kastoon diinta loogu sheegay aan ku waana qaadanayn axadkas kalena waa dadka masawirka ku shaqaysta oo taswiirta ani yaqaana wax masawira jaraa'id iyo waxay doonaanba ha noqdeene taswiirta meel ay ku timaad xaaraam weye qofka muslimkaa waxaa loo ogolaada waxuu nafsadiisa ku badbaadinayo amaa inta kaleo dhan taswiirta xaaraam weeye war islaamka waxaa loo baahnaa inay diinta ku dhaqmaan oy maxaasida shayga la yidhaha ka durgaan maanta maxaasiday u socdaan dadku maxaa dadka ku xambaaray inay maxaasida iyo qaladaadka aadaan war ilaahayna ka cabsada war rabbiga idin khalqay ka cabsada quluubtiina daweeyo diintatan ilaaliya rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid musnadu axmed ku sugan oo saxiixa waxau ku yidhi alaa ukhbirukum bishari cibaadi illaah ma idiin sheegaa addoommada alle kuwa ugu sharta badan noo sheeg baa la yidhi rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam alfaddu lmustakbir ashayi alkhuluqu lmustakbir waa kan dabeecadda xun ee kibirka badan leh waa kan dabeecadda xun ee kibirka badan leh waa kan dabeecadda xun oo dulqaadka daran leh waa kaan laga weyn waxa alla ka reebay dhexdooda aanna lagu arkin wixii alla u diray dhexdooda maxaa yeelay dabeeca xumada saasaa la yidhaah waayo qofka wax kastoo alla ka reebay dhexdooda haddii laga waayo bani aadamka ma xumay karo qaladaadna ma samaynayo markaas wax kastoo alla u diray kan laga dhex waayey wax kastoo alla ka reebana lagu dhex arkay ee haddana kibirka iyo isla weynanku ku jira weeye sidaas ayuu leeyahay rasuulka ay la yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ku yidhi xadiis saxiixa ku sugan saddex alla lama hadlo alla ma dahido alla uma dembi dhaafo cadaab alima ayayna leeyihiin yay saddexdu kala yihiin sayqun zaanin qof gaboobay ee saacad walba u taagan xaro alla waxay ku jirto zinadaas ou la imaanayaa ha noqoto tii zinada aheed oo nin iyo naag xaaraan isugu tagay ah
ama ha noqoto dariiq sina lagu gaaro inuu dadka tuso ama ha noqoto guryo dhisan inuu dundumiyo ilaa haddaad guri dhisan dumido waxaad fasaxda waa zine oo aad qalad ku dundumiso iyo waxaan diinta ogolayn ayo diinta islaamku waxay ogolaatay in guryaha lagu kala tago waa goorma markii duruufta arrintaas loo baahdo laakiin waxaa laga hadlayaa waa maxay waa inuu qofku dariiqa kayru sharciya u adeegsado soo qalad ku samayn lahaa shaykhun zaani ha u qaadani shaykhu zaaninka in loola jeedo qof sinaysoon kali ah adoo gaboobay haddaad xag ku soo jeedo adoo gaboobay dadka haddaad wax u kala sheegto adoo gaboobay haddaad been ku shaqaysato adoo gaboobay haddaad xaaraan cuntadaasoo cunay adduunka ka cunay waa kuu dhammaatay intaas ooma lamid tahay waa qof gaboobo macaasi ku gaboobay maxaa yeelay caasiga ciroobay oon cibaadada alle ku dadaalayn oon caqiidadiisa hagaajinayn waxau geli doonaa cadaabkii alle carunka ahlu naarkana wau cadayaa waxau doona macaasida uu samaynayaa ha noqoto ma ahan muslim haddaad tahay da'da kuu siyaadaa inay shar kuula siyaado marka da u kuu siyaado qabribaad u dhowaatee daacada badso annaga marka da u noo siyaado xanta iyo beenta iyo xaaraantaa noo badanaysa alciyaadu billaah ordad yowma ilaahay garataan oo addoomma alla noqotaan axadka kale waa malikun kadaab waa axad boqor ee hogaamiya ee benlow ah ka misli umaraa'u lyawm kullaha umaraa'u lyawm sida ay kulligood maanta yihin inta adduunka maanta madax looga sheegay kulligood waa muluk kulligood ku daba ah oo ilaahay aan oqoon oo aan rasuulkiisa oqoon oo hal qof oo muslima uusan ku jirin hal ilaahay garanaya uusan ku jirin subxaana wa tacaala walaa waaxid qur oo rabbi diintiisa inuu u nusrayo u taagan meesha u doonaba maanta ha ku noolaadeen ilaah uu yidhaahdo anigu mabda' diineed baan dabaqaya axad diintaas ilaahay inuu adduunka ku soo celiyo maanta diyaar u ah bacdama uusan adduunka ka jirin waa ku dabaa madaxda li'anna kaadibnimada waxa ugu daran inaad manhaj rabbi sheegatoodan dhaqankeeda haynin waxay nagu yidhaahdeen diintaan dabaqaynaa oo islaam baanu nahay waxay yidhaahdeen wasaarad garsoor baan samayna oo dadkaan u samayna waxay yidhahdeen wasaarad tacliimeed baan samayna oo dadkaan u samayna wasaaraddaasoo takriibka loogu talagalay taasoo jawrka iyo dulmiga loogu talagalay taasoo dhaca dadka xoolihiisa loogu talagalay war allaha laga fogo marka sidaasay ku noqdeen nimankaasna inaan ku fogaano looma baahna maxaa yeele meesha ma fadhiyaan wacaa'ilun mustakbir kan saddexaad waa qof faqiira ee kibir badan waxba ma hayso markaasuu kibir markaa la hadal maagtaba garba u nuuxinaya sankana sare ayuu u taagay kibir inta u ka qabo war allaha idin khalqay ka cabsada war annaga dhan fuqara ayaan nahay oo axad intaasoo daaraalla naguma jiro markaasuu qofkii safka garacayaa marka lala hadlo shaydaanka waxaa u sugan adduunka kan baa la yidhi waxyaala uu ku farxo waxyaalaha shaydaanku uu ku farxo oo uu jecel yahay waa maxay nicmada alloo lagu qoobo siismada alle ku siiyoo lagu faano addoommada alloo layskala weynaado hawadaada oo la raaco adoon daliil u haysanin sidaa darteed bowna alla yidhi ina allaha laa yuxibbu man kaana mukhtaalan faquuraa allah subxaanahu wa tacaala ma jecla qofka faanka badan ee kibirka badan leh sidaas ayuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala rajul ayaa jiray maalin maalmaha ka mida adduunka lugaynayey oo qisadiisa qur-aanka ay macruuf ku tahay ee rabbi dhulka la gooyey ee ninka adduunka ugu xoolaha badan ahaa ee rabbi uu ku yidhi fakasafnaa bihi wa bidaarihi alarda famaa kaana lahu min fi'atin yansuruunahu min duuni illaah wamaa kaana min almuntasiriin jalla wacalaa waxuu leeyahay wax allo waxau lahay asaga dhulkaan la taxqinay waatuu rasuulku yidhi fahuwa yajaljil ilaa yawmi alqiyaama yanzil wayaquus ilaa yawmi alqiyaama ilaa qiyaamo laga gaarayo waa degaya oo dhulkau tiimbanaya saasaa loogu gala isagoo nool macal daarihiisii dhulkay galeen dadka dhulka isla dhexe isla sarreeya ee sidii baalka geel urujayaaliya dhulka iska dhowrdhowraya saasaa u dambayda saas baa u dambayda oo laandheeranimada ku faanaya oo talweynaha ku faanaya oo xoolaha ku faanaya oo cilmiga ku faanaya oo shahaadada dibloomada qurunkaa ku faanaya oo masareed baan soo diyaariyo new york baan tagay 24 sac ku haya saas baa u dambaysa way ogaanayaan allah inuusan qaaruunka jeclayn qaaruun allah kama jecla subxaanahu wa tacaala meel xun baana u dambaysay kibirka xaqiiqadiisa waxa weeyaan waa laba nooc midna waa daahir midna waa baatin midka baatinkaa waa akhlaaq qofka qalbigiisa ku jirta midka daahirkaana waa in xibnahaada kibir ka muuqdo saas weeyaan kibirka arrintiisa haddaba qofkii yani kibirku waxau dhaliyaa canugu inuu waalidka warkiisa diido sawjadu inay ninkeeda warkiisa diido
ninku inuu waalidkiisa warkooda diido, derisku inuu deriska warkiisa diido, ardaygu macallimka warkiisa inuu diido, intaasoo dhan saldhig waxa u ah kibirka. kibirka ayaa saldhig u ah. waxaa la doonayaa inta wax kaala dhexeeyaan inaad warkooda qadarido, sharciga wax khilaafsan inay kuula yimaadeen maqan. inta wax kaala dhexeeyaan inaad warkooda qadariso ilaa wax alla ka caroonayo oo aadan fuli karin oo alla kugu kallifin inay kuula yimaadeen maahan. saasaa lagaa doonaya. waana inaad dareensiida awlaadda arrinta noocaasa oo noqoto qof khayr badan. dadka kibirka badan maalinta qiyaamada waa la soo jamcin ayagoo dhuuracasadoo kale ah oo suuraddii dad kale, markaasaa lagu dul soconayaa. waxaana la gey doonaa waadi la yidhaha naarul anyaar, naaruu meeshay ku kulmaan oo inta ilaahay wax ku cadaabo ugu kulayl badan. waxaana laga waraabi doonaa waadiga la yidhaha diinatulkhabaal oo dadka ahlu naarka xarunkooda ku qubanayo baa laga cabsiinaya. bacdamaa aad iimaan ku fakari weysay cadaab baa qalbigaaga laga buuxinaya. bacda waa qalbigaaga cabsi alla aysan ku bannaa jirin waxaad ka walwashaa qalbigaaga lagu keeni doonaa. bacdamaa dadka muslimiinta aad iskala sarrayday adoo qaawan 70 sano jahanaba dalkeeda inaad u socotaa lagugu kallifi doonaa. bacdamaa aad aayaadka alla diidooda axkaamta fuli weyday, bacdamaa aadan tawxiidka ku dadaalin oodan taqwo la imaanin, bacdamaa allaha raxiimka aadan raxmad ka dalbanin, albaabka naarta cidna kaama maadi doonto, beledka naartana adaa ka dhex ba'ayaysa doon. halkaasaad ka belberi doontaa adoo arrintaada ay si kala tahay. ee rabbigiina ka yaabo diinta ilaaliya. war samaanta kor yeeloo dad saqaawaa noqda. war rasuulkii ku daydoo sunnada hagaajiya. war xoolihiina ka sakeeya oo dariiq wanaagsan ku bixiya, dadkiina ciimo ah laydin siiya oo allihii idin qalqay ka baqa subxaanahu wa tacaala. kibirku waxa u qaybsamaa in alle lagu kibro, in rasuulka lagu kibro, iyo in dadka bani aadamkaa lagu kibro. waxaana kibirka ugu xun alla in lagu kibro, waana kufri. waxaa ku xiga rasuulka in lagu kibro, waa kufri oo awaamirtooda la diido. midka bani aadamka lagu kibrayaana marna waa kufri marna fisqi weeyaan, oo qofka haddausan xaliilan oo ka soo laabto saxadda inuu liibaano ayaa laga yaabaa. marka kibirkaas anwaacdiisoo idilwa xun weeyaan. war rabbiga idin khalqay ka cabsada. kibirka wax lagu daaweeyaa jira, daawadiisa ayaan idiin sheegaa ayadoo kaniini ah. kaniiniga koowaad ee lagu daaweeyaa waxa weeyaan aayaadka iyo axaadiista kibirka dhaleecaynaya in la akriyo oo lagu tadabburo. waa kaniiniga koowaad. midka labaad ee lagu daaweeyaa waxa weeyaan inaad ku fakertid meeshaad ka timid. khuliqa alinsaanu min maa'in daafiq, meesha insaanka laga khalqay marka hore waa inaad ku fakertaa. falyandur ilinsaanu mima khuliqa min maa'in daafiq buu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala. waa inaad garataa hal ataa cala alinsaani xiinun min addaari lam yakun shay-an madkuura. aayadahaas akri aayadahaas. waa alla ka abuuray insaanka nudfa, calaqa, mudqa, saas u soo waday. aayaadkaas haddaad akrida kibir la imaan maysid. midda kale waa inaad ku fakertaa masiirkaagu meesha u ahaan doono. kaa dambeeyaa waa jahanaba, waxa kaa dambeeyaa waa qabri iyo meel xiriiri badan. ku faker daawada saddexaad weeyaane. daawada afaraad waxa weeye waxaad akrisaa aayaadka iyo axaadiista ka warramaya dadka tawaaduca jannada lagu amaalmarinayo. waad ku liibaanaysaa markaana waad gaarin wanaagaaya. rasuulku muxuu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiis saxiixa, ina allaha tacaala awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yabqiya axadun calaa axad walaa yafqara axadun calaa axad. allah wuxuu ii waxyooday inaad tawaaducdaan ilaa aan qof u faanin, ilaa inaad tawaaducdaan ilaa aan qofna iskala weynaan oo qof gardarsada uusan jirin. rasuulkuna xadiis saxiixa oo kale ayuu ku yidhi, maa tawaadaca axadun ilaa rafacahu allah. axad ma tawaaduco alla darti uma tawaaduco. maa tawaadaca axadun lilah ilaa rafacahu allah caza wajal. rabbi baa sara u qaadaya subxaanahu wa tacaala. cudurrada kale oo dhan marka kibirkay soo hoos gelayaan. kan labaad waa cujbiga, isla yaabku nooc kibirka ka mida weeye. waxaana weeyaan in aad samaysid waxa aad bani aadanka u qabanaysid iyo waxa aad samaynaysid inaad istiri adiga laguna dhaamo. waa arrintuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam, markaad aragtid 4 arrimood nafsadaada badbaadi. waxaana ka mid ahay arrimaha uu nabigu sheegay icjaabu almar'i bira'yi, qofkaoo ra'yigiisa la yaaba. axadkoo is yidhaa caqli iyo feker iyo maamul adiga wax kugu haysta ma jiraan. walaa tamnun tastaktir,
macnaha meeshaa ku jiraa waxa weeyaan oo lagaaga digayo insaanka waxaad u qabatay inaadan ku gallabaysan adigoo isla yaab iyo kibir iyo waxbadsi u jeeda qadiyadda lagaa doonaya waa saabtan marka cudbiga laguu sheegayaa noocaa weeye qofka muslimkaa haddii uu kibirka nabad galo cudbiguna waa tegaya maxaa yeelay cudbiga laguu sheegaa waa culuwi inuu ku soo galo sarrayn inay nafsadaada soo gasho ood istira adigu cibaadada waa sugtay adigu camalka waan hagaajiyey waana cudur qalbiga ku dhaca rabbi hanaga daaweeye dadka maanta joogana hadduu ka maqnaan lahaa dhibaatada maanta haydaa kuma timaadeen axadku kama suulo inuu saro isu qaadayo nabigu yidhi ilaa uu alla ku qora dadka jabbaariinta diiwaankooda oo jahannamo la horgeeyo oo musiibadaas ay ku dhacdo rasuulkuna waxau yidhi xaqun cala allahi an laa yartafica shayun min addunya ilaa wadaca waa xadiis saxiixa rabbi waxaa waajib isaga dhigay inuusan shay adduunyada kamida sara u qaadin ilaa uu qaado dhulka u dhigaya alla waa dejinaya subxaana wa tacaala se alla waa dejinaa hoos ba usoo celinaya wax walba markay qiimo gaaraan hoos bay usoo laabanaya arrinta saddexaad waxa weeyaan caradu waxay kamid tahay ashyaada dhibka badan qofku haddausan carada iska qaban karina bis weeye caradaadu waa inay laba siyood noqotaa waxaa lagaa doonayaa xagga gaalada inay ku adag tahay xagga muslimiintana inay sabar u badan tahay lianna alla qur'aanka waxau ku yidhi muxammedun rasuulu ullah waaladiina macahu ashiddaau cala alkufaar ruxamaa'u baynahum muxamed waa rasuulkii rabbi soo diray dadka iimaanka leh ee micigiisa ahaadee diinta tan ku raacay gaalada way ku adag yihiin macnaheeda maxaa loola jeedaa way caroodaan diinta ilaahay marka lagu cayaaro alla darti bay u aarsadaan oo marka la leeyahay gaaladay ku adag yihiin wax kastoo diinta alla ku cayaaraya inay la diriraan bay ku adag yihiin saasaa loola jeeda oo waxay ku adag yihiin inay mujrimiinta iyo mulxidiinta ka hor tagaan muslimiinta way u naxariis badan yihiin ruxamaa'u baynahum waa kuwa isu dhimriya waa kuwa isu dulqaata way isu naseexeeyaan oo waa iswaaniyaan maxaa yeele jariir ibni cabdillaahi bau nabigu kula mubaayacooday sida saxiixa ku sugan wanusxi likulli muslim axad kastoo muslima in loo naseexeeyo oo maslaxadiisa iyo dantiisa laga shaqeeyo axad walboo muslima aya naseexadii xaggay aaday ruxamaa'u baynahum xaggay aadeen aayaddan ayadaa wallaahi dadku way ku gaaloobeen agtarkooda waana aayaadka ilaahay diintiisa ka mida oon dhaqankooda maanta adduunka lagu hayn waayo waxaan u naxariisanno oo aan ammaanta u soo jeedina waa gaalada dadka muslimiintaana raxmad isuma hayaan axad ba axadka kalow qalbiga balaaye ugu hayaa qof walaalkii qalbiga balaaye ugu hayana ducadiisa lama aqbalo maxaa yeele rasuulka allah maxau yidhi sala allahu alayh wasalam sida xadiis saxiixa ku sugan kulla itnaynin wa khamiis yakfir allahu likulli cabdin laa yushriku billah khamiis iyo isniin walba alla dembiga u dhaafa addoon walban alla u shariig yeelay ilaa laba qofood maahane oo baynahumaa shaxnaa dhexdooda uurgulud ka dhaxeeyo oo qalbiga xumaata isugu haya kuwaas dembiga looma dhaafo alla muxuu yidhaha subxaanahu wa tacaala utrukuu haadayni xataa yastalixa war labadan ka taga ilaa ay ka heshiinayaan ka taga taasoo alla leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaa ay ka heshiinayaan ka taga inna lilah haye yaa marka goormaan heshiinaynaa goormaan walaalo noqonaynaa goormaa qof walba noqonayaa qofka kale walaalkiina wax uga dooro caradu marka la ogol yahay waa inaad gaalada u carooto oo aad la dirirto maxaa yeelay nebiga maxaa lagu yidhi yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara waalmunaafiqiina waglud calayhim wama'waahum jahannama wa bi'sa almasiir war nabiga allah waxaad ku adkaataa kuwa diinta siiyey kuwa munaafiqiinta la jihaad oo ku adkaa meesha looyanayaana waa jahannada waxaad moodaa in lagu yidhi jaahid ilmu'miniin in la yidhi baad moodaa oy qurun iyo maal iyo qashiin ugu quman doonaan oo hal quraaniya iyo qofka weynanka badan laysku qori doono oo fakaaro qaabo qawsayn marka la gaaro qaylo badan doonto oo axad walba la odhan doono aayaadka alle xaggaad geysay oo indhuhu kor u tegi doonaanoo xabadkiisa uu kala tegayo arrintaan miyuusan qofku garanayn subxaanaka maxaa ku dhacay waa ka isagu kibir iyo ku soconayo inuu yani qof walbao muslim xamaata qalbigu hayo rasuulka nin baa u yimid sida saxiixa ku sugan waxau yidhi yaa rasuula allah waxaad ii sheegtaa camal aan jannada ku galo hana igu badinin aan xifdiye rasuulku maxau yidhi laa taqdab ha caroonin macnaheeda ma garanaysaa
ma ahan yaan carakaa dhicin laa taqdab waxaa loola jeedaa laa tanfud ha fulinin waxa ay ku amraysa caradaadu markaad carootid waxa kugu soo dhacaya ha ku dhaqaaqin nafsadaada hano lianna xadiis ayaa ku sugan nabigu muxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inama shadiid alladii yamliku nafsahu cinda alqadab qofka diraca waa qofka nafsadiisa ka adag markau caroodo waa axadka markau caroodo aayaadka alla lagu waani karo ayn xaggow joogaa maanta subxaana allah waa qofka aayaadka alla lagu waani kara markuu caroodo oo nafsadiisa hana kara axadka 3 arrimood laga helo jannada alla wow geli arrinta koowaad marka uu cabsanayo ka nafsadiisa ka adag marka uu wax dalbayo marka uu cabsanayo ka nafsadiisa ka adag marka uu wax dalbayona nafsadiisa ka adag marka uu caroodo uu xumaato lagu sameeyo nafsadiisa ka adag axadkaas ila jannadiisa waa gelaya runtii faa'iido weyn buu gaaraya marka dad rabbi ka cabsado nafsadooda ka adag aan noqono shayga carada la yidhaaha waa shay bani aadamka lala xiriiriyey oo rasuulkii alla caroo jiray sala allahu calayhi wasalam laakiin waxau alla na siiyey daawo lagu daweeyo hadda nin saxaabi ou nabigu arkoo nin kale u carooday ou yidhi waxaan garanayaa kelima haddou ku dhawaaqo caradu ka tegaysa law qaala acuudu billahi min ashaytaani arajiim dahaba canhu maa yajib buu yidhi waxaa ka tegaya wax alla waxu helaya carada shaydaan baa laga abuuray shaydaankana naar bay ka timid oo caradu shaydaan bay ka ahaatay haddaba naartana waxaa lagu damiyaa biyo weese qaado salaad duko seexo rabbigaa magan gal shaydaanka alla ka magan gal inuu nafsadaada balaayo ku sameeyo mar alla markii shaydaanku wax kuu diinayo dharka inta meel dhigatid oo xijaabka meel iska dhigtid oo xayaatada ku xayaartid oo caradii alle u bareertid oo cadaabka iibsatid naaray kaalay aan naartay ku galeen axad baad arkaysaa markau xanaaba kugu odhanaya haba lay cadaabo haddii la rabo haba lay cadaabo kufriga ka dara waa maxay haba lay cadaabo macnaheedu naxariis alle uma bahniya naaru hadday wax iga qaadaysaa laygu rido weeyaan maxay kuu taaliga arrintaas waa ilaahay ka cabsada war walaalayaal alla ka cabsada war dad islaama noqda war qaladaadka lagu jira laga baxo oo arrintana lagala waxaa loo baahanya qofku inuu dulqaad sameeyo caradana iska ilaaliyo lianna alla qur-aanka muxuu ku yidhi khudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waxaad qaadataa cafwiga iyo iska dhaafidda waxaadna ku dadaashaa dadka inaad ka jeesatid oo iska cafidid oo qof bani aadana aadan dhibin sidaas yeel baa nabiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam macnaheedu waxa weeyaan kii ku gooyo xariiri kii ku dulmiya iska cafi kii adiga wax kuu diida wax sii weligaana dhibaataha la qaabilin bani aadamka waxaa kaloo nala kaga digayaa xaqdiga waxaa la yidhaha xaasidnimada shay la mid ah waana dadka muslimiinta in qalbiga wax loogu qaado xaqdigu marka waxau kugu keenayaa in qalbigaaga naxariista laga bixiyo rasuulkuna xadiis saxiixa ayuu ku yidhi ina allaha rafiiqun yuxibu arifqa alla waa alla turid badan oo turidda jecel wa yucdii cala arifqi maa laa yucdii cala alcunfi turidda alla waxau ku bixiyaa waxausan adayga ku bixinaynin turidda iyo dhimrinta alla waa jecel yahay laakiin xaqdiga alla ma jecla war qalbigiinna xaqdiga ka saara war qalbigiinna xumaataha ku qaadinina waxaa kaloo la iska dawaynayaa waa xaasidnimada axadkii naxariista laga hoojiyey iyo dhimrinta khayrka kulligii waa laga hoojiyey dadka xaasidiinta ee quluubta wax ku qaadaana naxariis ma lahan muslimiinta inay caafimaad iyo wanaag helaanna ma jecla allahna qur-aanka ku caddeeyey dadka xaasidiinta inay khayr daran yihiin wadda katiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada allah subxaanahu wa tacaala muxuu noo caddeeyey inay yuhuudda iyo nasaaradu jeclaadeen inaan diinta dib uga baxno oon gaala noqonno xaasidnimo ku jirta darteed waxayna xasdayaan nicmada alla muslimiinta siiyey waaduu rasuulku xadiid ku sugan dabaraani ku yidhi maa xasadadkum alyahuud calaa shayin maa xasadadkum assalaama walaamiin yuhuuddu shay idinkuma xasdin intay idinku xasaday salaamta assalaamu calaykum oo laysugu ducaynayo iyo marka alla la baryo aamiinta la odhanayo marka dadka xaasidiinta oo idin saacad walba xiriiri bay ku nool yihiin qofka xaasidkaana tan musiibaa alla ku sallidaa adduunka intou ku nool yahay walwalbow alla ku sallidaa iyo walbahaar iyo fakar adduunka saacad walba walbahaar buu ku nool yahay arrinta labaad waxa weeyaan
mar kastoo ilaah naxariistiisu ay dadka u timaado lacnadda isaga u timaada. arrinta saddexaad waxa weeyaan mar kastoo muslimiinta ducada loo aqbalo oo isaga yani dadka islaamka ducada isugu ducay alla ka aqbalo isaga ducada waa lagu soo radiyaa. arrinta afaraad waxa weeyaan xayaatada waxaa looga bixiyaa si xun oo qaatimo xumow alla ku dila iyo diin la-aan. arrinta shanaad waxa weeyaan allah subxaanahu watacaala siraadkau gurguurad ku marsiin oo jahanabo salkeeda ugeynaya oo abaalmarintiisa halkaasay noqon. axadka xaasidkaa saacadna ma raaxaysto. axadka xaasidkaa duca iyo camal lagama aqbalo, sadaqo lagama aqbalo, soon iyo salaad lagama aqbalo, wax laga yeelaana ma jiraan qofka xaasidkaa. rasuulkii allah ka dardaarmay laa taxaasaduu walaa tabaaqaduu, hays xasinin oo haysu caroonin oo haysgoynina. rabbi subxaanahu watacaala markau nabiga barayey cadowga uu nabigu leeyahay alla waxuu nabiga ku yidhi ma taqaanaa alla waxaad ka magan gashaa wa min shari xaasidin idaa xasad, kan xaasidkaa kolkoo waxasta shartiisa alla ka magan gal. oo fiirso waxaa rasuulka lagu yidhi xaasidnimadu meesha ay jirto arag. dadka xaasidiinta ah adduunka markay joogaan xoolaha ay kasbanayaan ilaahaysan arrimooda uu ku keenaa. arrinta koowaad waxa weeyaan wax kastooy ka beecmusanaan alla wuu ku khasaariyaa. dhaqaalo kastoo alla siiyana barakadow alla ka qaadaa. jirin kastoo soo galana cadaabkii alla inay ku iibsadaan baa lagu sallidaa oy cadaabkii alla kaliya ku iibsadaan. wax alla waxay dhaleen oo awlaadana xusaad baa alla uga dhigaa subxaanahu watacaala. 24 shaadaal aan go-in baa alla dul saaraa. waxay ku daaleenna ma garanayaan waxay ku daaleen. dadka xusadadaa nasri iyo naxariis ma haystaan. dadka xusadadaa waa dad khayr daran. dadka xusadadaa waa dad alla ka fogaaday. war ilaahayna ka cabsado xaasidnimada, wa rabbiga idin khalqay ka cabsado xaasidnimada joojiya. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yidhi sida ku sugan musnad axmed iyo dabaraani xadiid xasana, yaa rasuula allah ayu nnaasi afdal, dadka yaa ugu fadli badan. markaasuu yidhi maqmuumu lqalbi suduuqu lisaan, axadka qalbigiisu nadiidka yahay carabkiisuna saadiqa yahay. markaasaa nabiga lagu yidhi suduuqu lisaan garanay ee maqmuumu lqalbi maxaa laga wadaa? waxau yidhi huwa taqiyu naqiyu laa isma fiihi walaa baqya walaa qila walaa xasad. waa qofka qalbigiisu nadiidka yahay ou taqiga yahay oo aan dembi, uurgunud, xaasidnimo, xaqdi iyo cadaawo islaam midnaba aysan ku jirin. qofkaasaa ugu khayr badan buu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. waa dadka alla khalqay qofka ugu hagaagsan. ma kartaan inaad saad noqotaan, ma kartaan qalbigiina inaad xaqdi iyo xumaata ka ilaalisaan. alla kala fogina annaga iyo muslimiintii salafkaheed. xasanulbisri iyo rijaal kalea waxaa lagu oran jiray hebel baa idin xantoo saa idin yidhi allahayo u dembi dhaaf oo wanaagsi oo saa yeel bay oran jireen. maxaa dhacay inaan janno galnay noo shaqeeyeena ma cadaabaan u shaqaynaynaa bay oran jireen. annagana kelmadkii nagu yidhaahda 3 gaalo oo isiidaan ka dabaraaranayno ilaa ay naga dhamaadaan oon biraha gadanada ka hari mayno. intaasna balaayaa laga daba shaqaynaya. maxaa loola jeeda arrintas? ayna alislaam? aawa dadkii iimaanka lahaa ee nafsadooda hanan lahaa, aawa dadkii iimaanka lahaa ee rabbigood isu dhiibi lahaa ee bani aadamka oo dhan cafin lahaa xaggay ka baxeen? aawa dulqaadkii walaa tastawi alxasana wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan. war xumaatada iyo samaantu ma sinna ee kan qaladkuu geysa wanaag ku amaalmari. adiga iyo kan xumaatadu idinka dhexeeya cadaawad wuxuu ku noqonayaa wali xamiime. rasuulka allah saa boleyy subxaana wataala. annaguna waxaan idhi maya xumaatada belaay waa la lama laabaa. dadkan cajaa'ibta haysata waxaa ka mid a si kasta haddaad yeesho ma ka dhaadhici karti sabar in allaha maca saabiriin. waxau ku leeyahy wajazaahu sayi'atin sayi'atu aayaddan in allaha maca saabiriin goormaa lagu dhaqmaya? walaa tastawi xasanatu goormaa lagu dhaqmaya? saacad walba wajazaahu sayi'atin ba ilahay baa yidhi awalba saas ilahay ba yeelay sidaa buu yidhi hadda xagaan ku xaraya oo maalinna kuguma soo dhici karta miyaa sabar baa ilah yidhi sabar. dadka sabar waa la jeclahay. sow maogdiyo yidhi faman cafaa wa aslaxa fa ajru cala allah. war qofkii iska cafiya islaax ka shaqeeya ajrigiisa xagga alla ahaanaya. war yaa dad yo miyaadna dad islaam ahayn? war rabbiga idin khalqa miyaadnan garanaynin? ummadatan arrintood xagee ka timid waa waxyaa badan. si kasta oo dadkan ay wanaagga ugu jeedaan inay qaataan diyaarowaan inna lilah. war alla ka baqa subxaana watacaala. waxaa la isaga digayaa suu danniga
xumaata oo muslimiinta loo daniyo waa cudurka kale qalbiga ku dhacaya oo alla nagu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu katiiran min adanni ina bacda danni ismun war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo rasuulka rumeeyo war danniga ka fogaada danniga agsarkiisu been weeyaan inna lilahi war danniga iska deeya rasuulka alla xadiisaya ayuu ku yidhi iyaakum wadanna fa ina danna aktabu alxadiid war adinka iyo dannigaan idin kala digayaa maxaa yeelay dannigu sheeke kan ugu been badan wey aye waa u malaynayaa saasaan u malaynayaa waa lalahaay waa la yidhi rasuulka allena muxuu yidhi ilaahay waxau idin nahay qiila waqaala wa kasratu su'aali wa idaacati ilmaa alla dadku hadal badanaa oo markay diinta akrinayaan caajis iyo madax xanuun badanaa iyo wadna xanuun oo markay dadka xamanayaan caafimaad badanaa ilaah waan cara alla nagu dhicin dadka macaradii ilayaa ku dhacday hortadiyo maa rabbigiina ka baqataan subxaanahu wa tacaala oo waxa kan aad ujeedaan ka laabataan waxaa kaloo laysu diidayaa waxa weeyaan in la xaqiro muslimiinta oo dadka muslimiinta xuquuqdooda lagu cayaaro waayo allah muxuu nagu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaa'in casaa an yakuna khayra minhunna war dadka allah iyo aayaadkiisa rumeeyow war yaan raggu rag kala xaqirin ragga la xaqiraya kuwa la xaqiraya inay ka khayr badan yihin baa laga yaabaa dumarkuna yaysan dumar xaqirin dumarka la xaqiraya kuwa la xaqiraya inay ka khayr badan yihin baa laga yaabaa rasuulku muxuu xadiis saxiixa ku yidhi bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akaahu lmuslim qofka muslimkaa waxaa shar iyo balaayo ugu filan inuu walaalka islaama xaqiro sow walaalihii ma xaqirin sow ma aanan liidin war dhiigga iyo maalka iyo nasabka in lagu xadgudba in xaaraanta soo ma ogidin war hays xaqirinina war hays liidinina war walaala noqda war isu duceeya war diinta ku socda war maxaasida joojiyo tooba keena war dadka islaamka qalbiga waxa ugu qaadinina war dadka cadaabka alle waxa uga yimaada albaabka koowaad waa xaasilnimada albaabka labaad waa adduunkoo lagu daraaro albaabka saddexaad waa shahwada waa waxa aad jeceshay lagu dhaqaaqo albaabka kale afaraad waa adduunka dhaldhalaalkiisa oo laga daba ordo albaabka kalena waxa weeyaan dadka muslimiinta in la liido dadkana qurunka dhan waxaa ku xambaaraya waa shahwatulbadni shahwatulfarji caloosha waxay jeceshay in lagu sugo iyo farjigu meeshuu rabo in la geeyo rasuulku muxuu yidhi maa malaa aadamiya wicaan sharan min badni aadamigu ma buuxiyo waal uga shar badan caloosheeda wax kastoo bani aadamku sameeyo waxa ugu shar badan calooshiisa waxa ku sugan maxaa yeelay wax alla waxaad cunto waxaad ku gaaraysa cadaabkii alla iyo ciriiri calooshaada waxaad ku sugaysa saddex ka dhig baa lagu yidhi oo meel xabid ku sug meelna cunid meelna neefneefsi inta agsarkaagana calooshaada u banay ilaahay daacadiisa iimaankusa u galo haddii kale qashin ka buuxi oo markaa maalaa kaaga buuxsanto iyo xalaawada islaamka khalaas waayo qofku hadduu xaaraan cuno saacad walbana ou dhergo saddex arrimood inuu ka fekera laazim weeye xan bani aadam inuu ka fekera laazim weeye wax caloosha ku subilay baktiba ha noqdo inuu ka fekera laazim weeye qofku kastoo bani aadam inuu liidaana laazim weeye annagana waxaa nahay asaatan weeye qada iyo quraac laga dhergayo iyo jiif raaxo badan waxau nagu dhaliyey adduunka inaan ku noolaano annagoo ilaahay caradiisa aan ku soconayno aakhirana cadaabkii alla aan shaqaysano saasay arrintiina noqotay war dadii oo ilaahayna u tooba keena war waxaa nafsadayda iyo diinaba uga digaya cuduradan qulubta ku dhacaya war u soo laabta allaha idin khalqo addoommo alla noqda waayo dadka alla wuxuu ugu necbiya kuwa qalbiga qallalan leh war maxaa qalbigeenna qallajiyey oo naga dhigay cadaawada ilaahay kaliya war jahanabaa meel taalla war jimaac ma lahan oo haddaan allaha jaliilkaa warkiisa la maqlin jilbaha lagu qaadaya oo halkan waxaa laga diyaariyey saqara oo ninkaan sahay diinta ka dhigan saqaraa la seexinaya oo halkan waxaa laga diyaariyey lada oo qofkaan lagdabada joojin lada naareed baa beenanaysa oo halkan waxaa laga diyaariyey nasri iyo naxariis oo ninkaan nabigii raacin nasriga iyo naxariistaa la arki maayo oo qofkaan hanuunka qaadan haawiye naareed baa la seexinaya allaha raxmaanka allaha raxiimka waxaan weydiisanaynaa inuu nasrina siiyo gargaar degdegan ouna siiyo muslimiintana u gargaaro mujaahidiintana meel ay ku sugan yihin rabbi ou nasri siiyo allahuma ansur lmujaahidiina fi kuli makan allahuma aqim dawlat alislaami calaa wajhi lardi kuliha wajcalna sababan laha allahuma ansur lmujaahidiina fi afghanistan allahuma ansur lmujaahidiina fi kuli buqcatin min biqaaci ardi ya rab alcaalamiin اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات اللهم اهلك الكفرة والمشركين والملحدين اعداءك اعداء الدين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا أميرا جائرا إلا كسرته ولا محبوسا إلا خلصته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح
إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك مدواعين مخبتين إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا وأغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهد قلبنا واسلل سخيمة صدرنا يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا. waxaa ka fudud bau leeyahay 36 jeer sanadooda. dad baa baneeyo lacagtu riba ma ahan yidhi rabbi lacagta ha ku cadaabeen. waayo maanta waxay taagan tahay in la yidhaha ribaba ma jirto, baktigoo dhanna xalaal weeye. allah subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqa. rabbi ribada wow tirtiraa, sadaqadana wow barbaariyaa. bal ninka dadka ribada qaata ka arag ciriiriga soo gaaraya, gaarigu rogmaya, balaaya ku dhacdaya, dhiisalka laga gadaya, mid dad yani dhibaato kala geysaya mataqaanida khasaaro, meel oo wax ka bixiyana ma arkayo. rabbina saasoo ka dhigin subxaanahu watacaala. rabbi saasoo ka dhigin dadka tareelayaalka kala dadaaminaya ee mooda inay xoolo gacanta ku hayaan. rabbi subxaanahu watacaala birahu ku cadaabi doonaa, dushoodawna saari doonaa. waxaana alle ka rajaynaynaa guri dhaaxa oo dhaladiisa dabka baxaya oo dadka ku jira aysan ka bixi karin in la arko, sida dadka ribada xallisha oo maanta qaadanaya oo mar walba usii jeeda. rabbi saasaanu ka rajaynaya, waqtigeeda waana la heli. waayo diinta tan wax kastoo lagu cayaarayo, si kastoo la yeelaba rabbi dad oonba usoo saaraya. rabbina asagaa diinta ilaashanaya. rabbina dadka cadowgiisa wou yaqaana. laakiin awalan xadiid ku soo marna daalimiinta alla waa u kaadiyaa. markay bayaxaabaan oy barwaaqo gaaraan baa alla qabtaa. si kastoo la yeelo wadaada loogu yeero duraama lagu akriyo, aayad kursi lala dul fadhiista iyo faataxa iyo tusbaxyo wadaada leeyihin waxba lagaba qabto. maxaa yeelay allow cadowgiisa yahay, rabbigii khalqaana maanta ka aalsanaya. war alla ka baqa subxaana watacaala. hawlaha ribada oo isolma sida lagu qaadana hala joojiyo. gabadhaydaa guri ii gadaya, gabadhaydaa gaari ii gadaysa, hebel baa ila qaadaya, xaggay ka dhaxaysaa. allahu akbar jalla wacalaa. allow yaa idinla taliyo ilaahay aqooda idinku yidhaahda. rabbi asagaa ballan qaada intuu xayaatada geliyey oo adduunka ku nool inuu nafaqad hore bixiyo. xaaraan cuna naguma dhihin ee rabbigiina ka cabsada. mawduucaas inaan kusii fogaada ma doonayo. waxaan rabaa inaan isaga tago, maxaa yeelay dadku inay bakti ka dhargaan bay jecel yihiin, cadaabkana waxay rabaan ay la maraan. waayo waxay mahmahaya u degsadeen, waxaan ku cunin waa la cunaa. haddaana ribo qaadan xaggeen aadaya? saaxiibkay waa ujeedaa gaari baa wataa, xaggeen ka baxaya? halkaas ayaa negati la xihan oo bas waxaa la iska dhigayaa bes. nin walba caloo derbi leega soo jeeda salkuna ha ku soo baabooso bakti meel ugu fadhiyo. axad walbaana saa ha ku shaqaysto. waxa dambeeya waa la ogaan doonaa. allah subxaanahu watacaala waxa kama doonaya rabbigiina ka cabsa oo diinta ilaahay dad ku socda noqda. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu caddeeyey dadka riswada qaata iyo dadka ribada qaata iyo dadka xoolahooda kuwa baadilka ku cuna, rabbi subxaanahu watacaala inuu cadaabkiisa ku sallidayo. cadaabkii allah feenan doona. markaa ka gadaal waxaa muslimiintu ku ijmaaceen riswada oo laaluuska iyo ribada ah inay xaaraam tahay. axadkii xallisaana diinta islaamka u ka baxayaa saacaddaas ayada. waa gaalooba, waqti waxaa lasoo gaaloobaya. wax islaamnimo la yidhaha uma dambeeyaan sideeda ahaan. ribadu waxay gashaa wax walba oo raashina oo kayd gala iyo wax walba oo lacag lagu magacaabo nuucay doonaan laga samaysanaadeen oo dahab iyo fiddo gooya, oo dahab iyo fiddo gooya ama dahab iyo fidda iyo wax kastoo raashin oo kayd geli karaya. maxaa yeele markuu alla u rasuulku diidayey masagada iyo saciirka iyo nooca waa quudnimada, dahabka iyo fiddada markuu diidayana waa tamannimada. wax kastee dahab iyo fiddo tamannimo la wadaaga lacagnimo, iyo wax kastee beriis iyo la wadaaga raashinka la cunayo cuntanimo, oo kaysami karayo oo kayd galo meel la dhiga karayo, ribaa gasoo xaaraan wey. dadka qaataa xaaraantaa ku cayrin. allah subxaanahu watacaala awalow qur'aankiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati maa razaqnaakum
وردتك الله يا آيات كيسا يا رسول كبر مييو وحان إنكو أرزقني أو حلاشا حقودا وحكحونا حارانتا إسكتين معايا إلى تبادر ولي قول حارانتا جاء أو أن درقن إني بقت حنان معانا بقت إني حنان معانا ما بدرق جيانبا وما بحضابا إني حاران حنان معانا وإذا بتحانا حواء إسلام الغاطان إذا نمك الله يقعنا يعني نمك الله يقعنا دولة هو سؤال بني آدم كحولي سيني غاطان بيفتحرين مركز طبعا أما أي دعام إيا دك عينس كغاطة جانب كي دونا بهكوي مالي والإله سبحانه وتعالى حردي سمد يكون على فربضان مركا كقد الوحى اللي يسدي إلي إن مسلمين تدنه هذا اللغو عياره وحكالو نلودي إذا جاجوس لماذا إيا دك مسلمين كوحو كويري يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وردتك الله يا آيات كيسا يا رسول كبرميو دكتوني دي نقاطة معنى الوحويا عدوك كفر الدقنال اسك إلالية اسك إيغا لكن أدبك اسجاجوسين الله واتو قرانك كويري ولا تجسسوا ورا اسجاجوسين ورا اسرع رائنين عيبهن لكن عدوك كفر الدقنال منافقنا اسك إيغا جاجوسين ما كنت غيثنين ربك إذن خلقي كعب صدا وجاجوسين ماذا اسك إلالية أيو نقولي يا رسولك الله سبحانه وتعالى ربي ما نقولنا يا خذوا حذركم تجسس كمسلمين تواك حرام إني أيوه اسكو سمايان ودك كمسلمين تعورات كذا الله توكلوا وحيبه هذا بناك الله صادقه أولي رسولك صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن باللسان ولم يدخل الإيمان في قلبه وردتك حربك كرم يا يو وان إيمانك قلبك كجرينو لا تطبعوا عورات المسلمين مسلمين تعيبوا هذا راعيننا مسلمين تعيبوا هذا راعيننا ذاتك أن دينت قلبك أقلينو لكن حربك إيمانك كله حتى أرك القط عيبها إسلامك قد قليا أين إيمان هدو جيرو مسلمين توسكنا بقليها ورى الله رمية والرسولك رمية والرسولك على طريق السراعة والنفس الدين اللجي هذا يا الشيطان وحولها إلهي إليسي يحوقين الدين تعالى أبو أبيك وضد إسلامه وإسجعل وإسعاب قرية وإنعبها بناك إسكدق النقضة لأن الرسول كبيري أدون عبتيسا كما قرية أدونك إلا أوكو قرية ستره الله في الآخرة ربي با عبتيسا قرية سقنا ما ننتقى قيامات والعبتين إنو ألا جلسوا مررتا وردك عبيه السدادة وربك إنك بغى وخيراتك يوناك كسغية ودينتان إسلامك إلالية وردينتان إسلامك إلالية وردينتان إسلامك دكو حق بها نغنينا ومعاصدها بنايسانينا والمعاصدها ممنوع وهي إسك إلالية دكو عبيه سئل الرحراحة لأن الرسول كوعوير صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات المسلمين أحد كي دكو مسلمين عوراتك والرحراحة فإن الله يفتحه ولو كان في بيته ربي با حيبين قرقي سدحلي سواء الله با حيبين قرقي سأسبه كدح جربان نغط من الله حيبين يبا ربي وحيبين ربي با بلن قال إنو حيبين أحد الله بلن قال إنو حيبين حقو حيب كوريا ما حيبه وينيا سعد الله حيبين يبا حيبته واكو إيماني سار ربنا حيبين الله بان كبر يينا إنو حيبين يحوراتك إنا قرية وربينا كبقوا دينة الإسلام كإلالي وضدك مسلمين توحيا بقرية ورجاجوس لماذا يدلق إسكدية ولا حكي ضدك مسلمين توحيا بهولا إيا عورات كولا دوقلا وحان شك كجر إنو مسلمين تفسهابين أو مسلمين تكو عيار نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أيو كويري من اطلع في قوم بغير إذنهم أحد كي قوم دال على أيقون وإذن ومك يعني ميرا بطبقا يدفدلولك كأيغا أحد كي سيدا سمية وحا حلال نقضي ددكاس إلي دلان أو إسا كالتوران قال حل اللهم أن يفقوا عينا حلال وحا هذا إلي إسا كالردان ويمودع كوغا مدان حلال كيسا قفكورك قلعيو سهدو إيغيا ومحاد قرى سلامتك إيغيسا وحا لبو سمينا يورميات كهيسا قرقا محلو حيرانا هدي ليسك إيغي كرايو dadka samaxad gurga ugu garaacaysa haddaad babaqbaqa ka eegaysid qal alla ka baq subxaanahu watacaala qofka islaamka arrintaas ayadaa lagaagama baahna rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid ayuu ku yidhi saxiixa
man istamaca ilaa xadiisi qawmin wahum lahu kaarihuun sabba fii udunayhi al'aanuku yowma alqiyaama axadkii dhegaysta dad islaameed sheekadooda oo ay kahanayaan sheekada in laga dhegaysto dhegaha rasaas la kululeeyaha looga subaa maalinta qiyaamada dadkii dadka jaajuusnimadooda ka shaqaynaya dadka sheekadooda iyo wararkooda dhegaysanaya kuwa la dhegaysanayana ay warka in laga dhegaysta kahanayaan kan wax la dhegaysanaya rasaas kulul baa dhegaha looga subaya cadaabkaas ayaa alla ku sallidaya subxaanahu wa tacaala cadaabkaa intaan nala ku sallidin rabbi aan ka xaqsanno oon diinta islaamka ilaalino cudurka kale bani aadamka ku dhacay mujtamac ahaan waxa weeyaan qisiga iyo khadeecada rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam addiinu nasiixa diintu waa naseexa maslaxada ayay ka shaqaydaa yay u tahay baa nabiga lagu yidhi waxau yidhi lilaah walirasuulih walikitaabih walia'immati almuslimiina wa caamatihim allah bay u tahay oo in lagu waxido weeye rasuulkiisay u taho waa in dariiqiisa la raaco kitaabka allay u taho waa in lagu dhaqmoo la barto madaxda muslimiintay u taho waa in lagu adeeco la waaniyo muslimiinta oo dhan bay u taho maslaxadooda adduun iyo aakhiraha laga bara marka meeshaad maslaxadooda adduun iyo aakhira u sheegi laheed haddaad khayaanayso ood balaayo u maleegto khayr malihid waxuuna rasuulku yidhi man qasanaa falaysa mina axadkiina khayaaneeye balaayo noo duugaa naga mid mahan rasuulkana maalin bau suuqa soo maray markaasuu yidhi yaa macshara tujaar war dadka beec mushtarkaaho inta suuq wax ku gadatee beec mushtara maalinta qiyaamada waxaa la soo bixiyaa kulligood ayagoo fujaar ah oo faasiqiina oo cadaabkii allala wey ilaa man ittaqa allaha wa barra wa sadaq axadkii rabbigii ka cabsaday oo runta sheegay oo mucamalka u samaynayo o dhan xaqa ku waafaqay maane inta kale beec mushtara ayagoo fursaqa ayaa la keenaa buu yidhi maxaa yeelay beec mushtarka dadkiisa dadka ugu been badan ugu ballan furyo badan oo yani balaayada ishoosgeli og 24 sano khadiica ku soconaya ilaa axad alla ka cabsado yidhi axadkii rabbi ka cabsaday xagga ilaaliya waa laga istisnooda laakiin dadka bani aadamka uma badna inay cabsi alla ilaaliyaan xaaladdu markay halkaa taaganta uma badna ma u badna silinba haddii la helayo in rabbi cabsidiisa la ilaaliyo marka allaha laga bogo subxaanahu wa tacaala bani aadamka dhibkiisa alla wou diiday waxyaalaha rabbi noo diiday ka mid tahay oo cudurrada nagu noqday allah muxuu yidhi waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina war dadka mu'miniinta dhibaya rijaasha ah iyo dumarka mu'minaadka waxay kasbadeen oo dembiya ayadoon la arkin dhibaya oo balaayada iyo muskulada la dul taagan waxay cambaarsadeen oy gacanta ku dhigeen oy qaateen been abuurasho iyo dembi mubiina ee cad caradii allay qaateen ay aayadda alla arka waxaa ka dhintay carabka ha noqdeen ood caydo ama gacanta ood wax ku dhifato ama qalbigood xumaato ugu qaado war mu'miniinta iyo mu'minaadka rag iyo dumarka iimaanka leh dadka dhibaya ee inay wax ku sameeyaan u taagan wax ay ka biyeen ayadoo la arag been abuuras iyo dembigay qaateen dariiqaas adoo iska maraya qof baa ku arkaya isma taqaanaan laakiin meelahaas iyadoo laga sheekaynayo o maqlay markaasoo halkaa cay iyo waxuu la fadhiisanaya aflagaado bal maxaa ku xambaaroo ku wata bal yow garanayaa bal yaa xoole ka sitay oo yaqaanaa lama garanayo bani aadamka maanta jooga waxa lagu hayay ka mid taas rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa ku sugan wuxuu ku yidhi man axabba an yuzaxzaxa can innaar wa yudkila aljanna falta'tii maniyatu wahuwa yu'minu billahi walyawmi alaakhir walya'ti ila annaasi alladii yuxibu an yu'taa ilayh axadkii jecel in naarta laga dursiyo oo jannada la geliyo geeridu ha u timaado isagoo alla rumaysane daacadiisa ku dadaalaya aakhirada rumaysana u camal falaya dadkana ha ula yimaado waxa uu jecel yahay isaga in loola yimaado keli ah yaa jecel in la dhigo oo la caayo oo la xumeeyo waxa adigu aad jeceshay in lagugu sameeyo keliya dadka ku sameey waxa aad necabta oo dhanna dadka gaday saasuu leeyahay rasuulka alla sala allahu alay wasalam wa haddaad jeceshay jannadii allah ood rabbi jeceshay inuu cadaabka kaa koriyo oo naxariis iyo khayraad ku siiyo laakiin haddaadan jeclayn wanaagga ood ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa aadan rabin adiga oon baa garanaya meeshaad u socotid rasuulka sala allahu calayhi wasalam waatuu dadka muslimiinta ku yidhi waddooyinka ha fadhiisanina ee la yidhi waan fadhiisanaynaa rasuulku waxau yidhi dadka dariiqa maraya ha dhibinina salaamta ka radiya wanaagga baroo xumaatada ka reeba
dadka islaamkaa rabbi ha ka baqeen diintana ha ilaaliyeen cudurka kale waxa weeyaan xanta iyo siday arrinteedu tahay algiiba xan waxaa la yidhaah rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa yaktab bacdukum bacdaa waryaan gabalkiin gabalka kala xamanin ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihumuuh war axadkiin ma jecel yahay qofka walaalkiisa oo mayda hilibkiisa inuu cuno waa kahanayaa ma jecla sidaa darteed xanta iska deeya dadka xamanayaa axadkii oo dhintay hilibkiisa googoosanayana bakti bay cunayaan xantu sidaa weeye xanta shayga la yidhaaho waa shay saniixa subxaanaka ya ilaahi xanta haddaan iska dayno xaggeen qada iyo qurax ka doonanayna saasay dadkii maanta taagan yihiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau ku yidhi xadiid saxiixa habeenkii lay korsiiya waxaan soo maray dad ayaan soo maray yakmisuuna wujuuhahum wa suduurahum xabadkooda iyo wejigooda ku diiraya xidiyo dhaadheer oo nuxaasoo maar ah oo jirkooda ku yaalla oo sidaa dhiig isaga keenayo isku hoolaya oo hadda dubku soo dhalanayo markaasaa inuu yaha jibriil man haaulaa war jibriilow kuwa kanu waayo jibriil waxau yidhi aladiina ya'kuluuna luxuuma annaas wa yaqacuuna fii acraabihim waa dadka hilibkooda cuna oo sharaftooda iyo nasabkooda iyo qabiilkooda wax ka sheega hakuwaas wey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dadkii oran jira laandheerana oo reer hebel waa litaa ma guursano nama geeyaan adigu dahab miyaad ka samaysan tahay walle calooshada saxaabada kaadi kuma jiraan meelkaadii soo marto islaan ku taadana kama soo bixin oo qofkaanu soo maray anigu reer hebel baanu haye managa isgeyna haye yaa ku geeya maxaa tahay dahab miyaa jira adduunka ku guursa lahaa orad raadso laqaadir oo rabbi ka baqa subxaana wa tacaala dadka sharaftooda ku cayaaraya weeye buu yidhi oo hilibkooda cunaya dadka noocaasa iskale cadaabka noocaana waxaa laga dhigay cidiyahoodii waa feero nuxaas ah oo jirkooda ku hoolayaan sida loo galo fiirso waa dadka xanta keliya ku shaqaysta ilaahay aan garanaynin rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi waxaan soo marnay annagoo meel soconayna qurun aad wax u qurmaya markaasaan waxau yidhi mari weyna meesha qurun darti waxaan yidhi o yaa jibriil man haaulaa'i natri qurunku waayo waxaa laygu yidhi bau yidhi waa dadka xanta hilibkii bani aadamka cunayaan weeye ayaa laygu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxay idinla tahay marka xanta meesha ay noo joogto maanta ma garanaysaan dadka maanta jooga cudurka ugu adagay qaban xan weeye rabbigiin inta ka cabsataan bani aadamka ma nabadgeli kartaan xanta ma iska dayi kartaan iyo dadka caayidiisa rasuulka sala allahu alayh wasalam xanta waxaa la yidhi ayowna baray saxaabada ku yidhi sida xadiis saxiix caddaynayo atadruuna malqiiba ma taqaanaan xan waxay tahay markaasaa la yidhi allah iyo rasuulkiisa garanaya rasuulka waxau yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrah xan waxaa la yidhaha qofka walaalkaa inaad ku sheegto wax u kaanayo hadduu ku hor taagan yahay iyo hadduu kaa maqan yahay waa isla mid waxa hadduu nacayo diidayo haddaad ku sheegto waxaan xanta lagu sheegaya saas weeye dad baa ka oranaya xaman maye way hor taagan yahay waa kanin haye oo hadduu ka hor taagan yahay waxa ma rabaa inaad ka sheegto rasuulka waxaa lagu yidhi ka warran yaa rasuul allah in kaana akii fiihi ma aquul walaalkay waxaan ku sheegaya hadday ku sugan yihin ka warran faqad istabtawir waa xamatay waxaad ku sheegaysa hadduu yahay waad xamatay hadduu diidayo hadduusan ku sugnayna faqad bahatow waad ku been abuuratooy been abuurashada ayaana ka sii xun war dadka rabbigood khalqa ayaa la xisaabtamaya ee xan wax looga tari maayo xanta ha layska deeyo war xanta ha layska deeyo war ilaahayna ka cabsadee dadka ha xamanina rasuulka sala allahu alayhi wasalam caaisha la joogtay markaasay tihi gabadha safiya la yidhaha waxaa kaaga filan waa ay gaabantaa rasuulku waxau yidhi ilaah baan ku dhaartee kelime ayaad ku dhawaaqday badda biyaheeda haddii lagu daro badda biyaheeda ay uri lahayd afkaaga haddii laga soo bixiyo kelimadan ee badda biyaheeda lagu daro badda dhan way gurmi lahayd buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu badda dhan baa gurbaysa waa gaabanta keliya wey maxaa yeele ma rabto in la yidhaha warkaas maxaad ugu sheegaysaa haye bal haddaba waa qofkaan maanta belayadan aan dabaalan war tooba keena oo qofka markau tooba keenayo waa inuu dembiga ka qoomameeya mar dambe inuusan u laaban waa inuu goostaa markaana waa inuu gacanta kala haraa qofkiina waa inuu ilaah u dembi dhaaf yiraa kana xafis dalba saasaa loo baahanya xanta saatan baa alla noogu dhaafayaa wax kale maya laakiin sidaan maanta ku suganna bal xanaa nala kugu deeyo bal sidaana dad islaam aan ku noqonno xantu waa xaaraan kitaabka qur-aanka
subxaanahu watacaala waxau ku sallidaa san cuquubo. cuquubada koowaad waxa weeyaan carabkooda alla waxau ka dhaarayaa xuska ilaahay. cuquubada labaad waxa weeyaan rabbi xifdiga iyo fahmadow ka lumiyaa weligood dad wax xifdiya alla kama dhigo. cuquubada saddexaad waxa weeyaan biyo ayagoo odhanaya meel looga dheganyaan aan garanayn ba alla nafta ka qaada. cuquubada afaraad waxa weeyaan rabbi siraadka ayuu weji ku marsiya. midda shanaad waxa weeyaan qabriga marka la dhigo ayaa 70 mayl dhulka hoos loo geliyaa oo garuun lagu garaacaa. sidaas ayaa loo ciqaabaa dadka marka shanta ciqaaba markay ku dhacda ka gadaal jahannama waa u dheerta meelay ku sugaysaa, waa ka dambaydaa jahannamo. intaas ka gadaalay jahannamada tegayaan. gacanta shayga la yidhaha layska daydiidiye bal hala arko wixii laga dhaxlo, bal qof walba waxay ku geydaay aragtid xantu waxay ku keento. xanta waxaa loo ogol yahay qof in wax laga sheego dhowr jeer. marada koowaad waa maxay? qofkii waa ku dulmiyey, waa ku dhibay, axad adoo uga dacwoonaya oon qofkaasi liidayn kuna been abuuranay waxaas ayuu ugu sameeyey inaad tiraa waa lagu ogolaya. marka labaad waxa weeyaan qofka kan dembibow kaa galay waa jawaab baad raadsanaysaa. misaal nin iyo haweentiisii baa diriray ama nin iyo qaraabadiisii kale, qof haddou saas ku yeelay ehelkaagana yahay maxaa lagu sameeyaa buu kugu odhanaya. saasoo kale xan weeyaan laakiin waa la ogoliyay maxaa yeelay ninkaanu masale diinu caddaysanaya. arrinta saddexaad waxa weeyaan axadka kan dadka muslimiinta ayuu dhibkooda la jahrayaa oo waxaad aragta isagoo ka shaqaynaya inuu dad muslimiina dhaco ama u dacweeyo ama u xumeeyo ama u gabar muslimada ku xadgudbo. waxaa kuu banaan inaad dadka u sheegto tiraa iska ilaala qofku saasoo yeelaya. arrinta kale waxa weeyaan axadka kan maxaasiba ula jahraa dariiqyada ayuu qabrada ku cabaa, dariiqyaduu ku qayilaa, sagaarkana ku cabaa, gabar kastoo soo martana gacantau ku baaxiya. war qaladkaasoo leeya iska ilaali baad odhanaysa. midda kale waxa weeyaan waa lagaa shawr dalbay, wiil iyo gabar baa isguursanaya, markaasay gabadhii kugu tiri ka warran ninka ka ama ninkii baa kugu yidhi iga warran gabadhata. waad u sheegaysaa waxa arrintoodu tahay. saaad ugu sheegaysaa waa sidee? nabiga waxa u timid gabadha la yidhaha Faadima bint al-Qays, waxay tiri yaa rasuulallah abaa jahmin mucaawiya ayaa isoo doonay. rasuulku muxuu yidhi mucaawiya xoola malaha waa faqiir, abaa jahmina naagahu dila waa xila gube waa la yaqaan soo maaha. saas islaamuhu ma jecla ninka dila, inkastoo yidhaahdeen islaamaha soomaalidu ninka hadduu ku dilo inuu ku rabay daliil u tahay, marka in laydin dilo waa idinku habboontaan malaynaya. waayo dhaqankiinaaba saasa oo ixsaan inaan wax kulahayn baa muuqata. waayo waxay tiraa soomaalidu nin iyo naaqis qaba col iyo nabad midna maahan. iminka hore feer iskala daala, iminka dambana go-a wada huuda oo haakada ila marka ku socda saas la qaabay daranan oo rabbi ka baqa subxaanahu watacaala. marka waa looga hadli karaa qofka noocaas oo kale. qofkan waan la darsi rabaa, waxbaan ku darsan rabaa, waan guursan rabaa, iga warran ma ahan inay ceebta qariso. waa lagu imaanayaa maanta waxaa ku imaanaya inantaasu soo heshiinay oo doonaysa inaan bal mawduucan guurkana dhex maro. ceebta aan leeyahy o dhan waa inaad utafsiin. waa qof fiican, waa fiican yahay. qofkii marka guur la yidhaha la amaanay yaa amaan ku yidhi. ceebta labadan qofood aysan isku dhaqi karin ood qofkood ku ogta ushaa qofka kale una naseexay adoo ula jeedin xaaraan weyn in laysu qariyo. waa xanaaq badan yahay qofkaana, xoola ma qabo qofkaana, waa dabiicad xun yahay qofkaana waa kida wax walba inaad sheegtaa. taasaa laga hada bacdamaa mawduuca ou yahay guur iyo dhaqan ama uu noqdo dad darsaya ama bixmisar noqonayo iyo wixii lamid. arrimaha noocaasa xanta la ogolyahay in la sheego. waxaa kaloo la ogol yahay qofka naynaas baa loo yaqaan, sida lugay oo kale ama iday haddaan lagu sheegina lama garanayo. adoon ku leedihin dadka waad u sheegtaa oo qofka lugtal ah ood odhan kartaa. laakiin haddaad ku liidaysa xaaraan weeye, mana banan. ma ku sheegi qofka lugay ma ohan karta adaad ku liidaysa. magac kaloo loo yaqaan hadduu yahana ma sheegi kartid. qofka waxaa loo yaqaan magac naynaasa uusan jeclayn, dadkuna magac kale uma yaqaanin. inaad ku sheegta maa lama garanayo, waad ku sheegaysaa adoo ula jeeday qofka ku liid, laakiin dadkaad ku baraysaa waana kuu banaan tahay. waxaad arkaysaa nimanka muxadisiinta axaadiida laga wariyo midba acmash lagu leeyahy inda kubiyoole mida axraj lagu leeyahay waa rag waaweyn oo sayuuqa. maxaa yeelay naynaasta in macruuf ku yihi saas oo kale. qofka naynaasta macruufka ku ah waa lagu sheegi karaa haddii loo baahday. waxaa kaloo lamid a qof baa maamulka muslimiinta meel u haya ama meel buu macallin ka yahay waxbuu ka qabanaya, qalad ayuu la yimid diinta ku xun, dadkiina wuu luminayaa, si xun ba u socdaa. inta loo taga dadka waa la odhanaa qofkaan iska ilaaliya ma fiicne, waa banaanta ayadoon lagu xumaynayn. laakiin laleeyahay qofka waa ka qaadan karta, laakiin qaladka noocaasa iska eega. waa intay muslimiintu ogolaadeen. waxyaalahaas dacwada waxaa ku saabsan hindaa nabiga u timid, waxay tii rasuulka allow abaa sufyaan ninka la yidhaha waa nin bakiil ah,
inaan xoolaha wax ilmaha aniga ugu filan ka qaata maahan gacantiisu ma bixi karto waayo bakilnimada dad waa isaga dhashay waa nin saxaabiya rasuulku wuxuu ku yidhi adiga iyo ilmahaada wax idinku filan xoolihiisa ka qaata cuna saas yeela buu yidhi sala allahu calayh wasalam khalas amarkiiba intaasuu ku dhammaaday marka dadka islaamka waa inay gartaan arrimahaas in loo ogolaado laakiin xantu xaaraam way sida kale war shayga xanta la yidhaah waa cudurka koowaad ee xididadii naga googooyey oo wadnihii naga ololyaha la iska geeyey cudurka kale waa namiimada birabirada rabbi baa qur-aanka markau dhaleecaynaya muxuu yidhi weliid hammaasin mashaa'in binamiim waa mid durid badan u socosho badan ummadda inuu isku diro alla muxuu yidhi waylun likulli humazatin lumaza halaag iyo cadaabkiisa adag dadka dura ummadda isdaxniya isku dira balaayada u kala sheega u sugnaaday war ilaahayna ka cabsada rasuulku muxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yadkhulu jannata namaam diradilaalow jannada alla ma galo qofka dadka warka u kala naqliya qofka warkuu keenana waxaad tidhaa beenlowyow iga tag faasiq warkiisa lama yeele marada labaad warka uu kuu keena ha ka yeeli dadka sheekada dadka u kala geeya khayr malan ha ka yeeli rasuulka laba qabri bau soo maray waxau yidhi labadan waa la cadaabaya mid waxaa loo cadaabaa kaadidoosa iska dahiri jirin midka kalena ummadda u isku diri jira u yidhi sala allahu calayhi wasalam ummadda u isku diri jira u leeyahy haye dadkii ummadda isku diri jiray qubuurtoodii qayla ka yeerta nebigoo maqlaya markaasuu yidhi ummadda war u kala qaadi jiray markaasuu qabriga ka dhex qayrina maanta dad dhaaxaa qabriga waa soo tufi doona waxaana dhacay waktigii nabiga nin baa 3 jeer inta la aaso qabrigu soo tuuray markii dambe qashinka lagu tuuray riwaayada ayaa jira cadaynaya inuu ahaa nin islaamnimo sheeganaya muslimiinta dhibay inuu ahaa markaasaa qabrigu 3 jeer banaanka soo dhigay markii dambe waa la aasi waayey rasuulka waxaa la yidhi dadka dembi badan baa qabrigu eliyaa maxaa dhacay waxau yidhi bacdama uu muslim sheeganayay oo islaamka dhibay sharafta islaamku leeyahay in la muujiya la raba ilahina saas u cadaabo markaasuu qabrigii banaanka soo dhigay waa la aaso banaanka soo dhigay wax lagu qabta la garawaayo marka qashinkaa lagu tuuray axad walba qabriga waa soo tuuri doonaa dadka nagan maanta jooga haddaana waxaana ku jiran ka baxsan oo rabbi ha laga bogo subxaana watacaala diintan alla dad ku socdo ilaali aan noqon xaqiiqada xanta waxaa la yidhaha in dadka warka loo kala qaado dad warka isu kala qaado isdhibo ilaahay nagama dhigo rabbi waxaan ka baryayna inuu naga dhigo alla dad khayr badan dadka warka u kala qaada waxaan rabbi ka baryayna inuu dembiga u dhaafo soona hanuuniyo dadka islaamkaana oo alla hagaajiyo marka dad hagaagsan oo diinta ku dhaqmo aan noqono sharciga aan ilaalino samaanta aan ku soconno cudurrada aan iska daaweyno musiibooyinkaan nagu socda maantana aan alla ka magan galna subxaana watacaala rabbigayana aan u laabano rabbi waxau ballan qaado qofku hadduu dambaabo ee uu tooba keeno qalad kastoo gala inuu inta ka tirtiro meeshuu ka tira khayr ugu qorayo waa naxariis ilaahay 50 sano haddaad dembi ku socotay oo tira ilaah caawa waa isu kaa dhiibi intaad gatay inta lagaa saxaqiya meesha khayr laguu qoraa laga tiray maantaasaana kow lagu leysay oo caawa dhasoo kale waa nicmo ilaahay shaydaankan halkaas ku jabay laakiin anagu shaydaankaan jecelna inaan raalli garayno ilahay ma jecel inaan raalli garayno saa darteed cadaabkii allah la shaqaysanaya marka allaha laga boqo rabbina xaqa ha nawafajiyo allahuma ansur ilmujaahidiina fi kulli makan allahuma ansur ilmujaahidiina fi kulli buqcatin min baqaaci ilarda allahuma aqim dawlat alislaami calaa wajhi ilardi kulliha wajcalna sababan laha اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك الكفرة والمشركين والملحدين اعداءك اعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مسرت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال مادة يوحى ديارسي مكتبة الهدى سيدوك لمكتبة الهدى وحد كيلكتان كتبتا أجلدها البماد قرآنك تفاصيلتا أحاديثتا محاضراتك مقل يا مقالبا مكتبة الهدى وحي كتلا كسوهرجيتك مسجدك أبو بكر الصديق 6 ستريت حافظ إسلي نيروبي كينيا وحي فافاهين انتا دير وحاد كل حريري كتان مكتبة الهدى تليفون نمبر إبر لبشن أفر تضبع لبو هل لح أما بيو بوكس كوبيتون أفرتن إبر نيروبي كينيا